Diyaaradan Drone-ka aan duuliyaha wadanin ma aha diyaarad Mareykan ama Faransiis lagu sameeyay. Waa farsamo Turkiyaan ah oo nooceedu Bayraktar. Mareykanka ayaa ka mamnuucay hubka noocan casriga ah in dalkiisa loogu dhoofiyo Turkiga muddo aad u dheer. Turkigu wuxuu ku guuleystay inuu sameysto drone isaga oo khaas ah, sidaan wuxuu ku noqday dowladaha ugu waaweyn ee caalamka ee iibgeeya drones-ta, halka uu markii hore ka ahaa macaamiil ku xidhan dowladaha soo saara drones, kana dhigtay Turkiga mid kula loolama saaxadda caalamka soo saaridda drones. Sanad ka hor markii xisbiga cadaaladda iyo horumarka uu la wareegay xukunka dalka Turkiga ayay ahayd markii ugu horeysay oo Mareykanku ku weeraro dalka Afghanistan diyaaradaha duuliyaha wadan ee drones-ka. Waqtigaas oo ay ahayd bilowga diyaaradaha drones-ka Mareykanku ay xukumayeen wada caalamka, xukunkaas oo soo dhamaaday 2015 sababna oo ahayd in ay soo saareen oo ay barteen dowlado kale oo caalamka oo ugu horeeyo dalka Shiinaha iyo dalka Turkiga. Drone-istu waa hub saameyn ku leh xagga dagaalada istiraatiijiga, waana hub qiimihiisu aad u jaban yahay. Guul gaarana u soo hooya dalkii samaysta kana dhigta quwadaha caalamka ugu tunka weyn. Laakiin sidee buu Turkigu uga mid noqday dowladaha khatarta ah? Runtii arrinkan wuxuu qaatay muddo aad u dheer iyo tandaasi badan oo loo geystay Turkiga. Sheekadani waxay bilaabatay sanadii 1975 xilligaas oo Mareykanku cunaqabatayn saaray in uu hubkiisa u dhoofiyo dalka Turkiga sababo la xiriira dagaalkii uu ku qaaday Turkigu jasiiradda Qubrus. Waxaa isla xilligaa xumaaday xiriirkii u dhexeeyay Turkiga iyo dowladaha reer galbeedka, taasoo beddeshay fikraddii ahayd in Turkigu hub soo dhoofsado, isla markaana indhaha u furtay in wax soo saarka dalka ahmiyad gaar ah la siiyo. Isaga oo Turkigu aasaasay dhowr shirkadood oo soo saara hubka noocyadiisa kala duwan. Shirkadahaas oo badankoodu xoogga saaray soo saarista rasaasta iyo hubka noocyadiisa yaryar, sida shirkadda Thai oo soo saarta gantaallada hawada loo diro. Wuxuu Turkigu soo iibsaday 6 diyaaradood, ujeedkiisuna wuxuu ahaa hawlgal iyo indho-indhayn. Laakiin diyaaradaha oo awooddoodu aad u yarayd waxay soo gudbin jireen oo qoriya macluumaad, taas oo Turkigu ka liftay inuu heshiis la galo Israa'iil kana dalbado diyaaradaha heeran oo Israa'iil farsamayso. Balse 5 sano kadib ayay Turkigu u suura gashay inuu helo diyaarad uu Israa'iil ka dalbaday, kaas oo ay ahayd sanadii 2006. Drone-istu ay ku rakiban yihiin kaamirado laguna hagayo remote. Muddo kadib drone-iskii xumaadeen, eedeyna Turkigu u jeediyay Israa'iil in ay falkaas ka dambeeyeen, waxayna dib ugu celiyeen drone-iskii Israa'iil si loogu soo habeeyo waddanka. Arrintaas oo iyadna qaadatay sanado. Waxaa markaa u qaabilsanaa Turkiga diyaaradaha drones-ka in la daaro farsamayaqaano Israa'iiliyaan ah. Arrintaas oo Turkiga walaac ku abuurtay in xogta ay duubeyso Israa'iil la sii mariyo. 2004 ciidamada Turkiga ayaa soo jeediyay in shirkadaha hubka sameeya tartan loo qabto, waxaana isla markaa tartanka ku guuleystay shirkadda Thai ee sameysa gantaallada hawada loo diro. Guulihii ugu horreeyay waxay ku soo bandhigtay diyaaradda Anka. Diyaaraddaas oo awood u leh in ay ku duuli karto joog aad u sarreeya, cabirkiisuna uu yahay 30,000 oo feet 24 saacadood. Laakiin diyaaraddaas oo muddo 10 daqiiqo ku burburtay hawada, cilada oo ka timid mishiinada laga soo dhoofsaday 2 shirkadood oo Shiineys iyo Jabaanis ahaa. Laakiin horaa loo yiri darbaaxadii ku dilooyda awood bay ku yeeshaa. Guuldarrada Turkigu wuxuu ka qaaday awood, waxayna go'aansadeen in ay daafuraan oo ay ku doonayaan samaynta matoorkii ugu horreeyay ee Turkiga lagu farsameeyo. Gunaanadka 2011 dadaal badan iyo ku fitaan badan waxay ku guuleysatay diyaaradda Anka
inay hawada gasho oo diyaarad sidaana ay ku shaacayso inuu Turkigu gaadhay waqtigii uu ka mid noqon lahaa dowladaha caalamka. Laakiin taasi macnaheedu ma ahayn inuu Turkigu gaadhay hankiisii. Diyaaradda Anka waxay ku koobnayd oo keliya basaasida iyo indhaynta. Mayna ahayn diyaarad hub xambaari karta iyo gantaal ah. Isla markaana waxaa bilaabmatay baadigoobka ay raadinayeen oo ay ku soo saareen diyaarado hubka xambaara oo drones ah. Sanadkii 2005 waxaa u yimid mas'uuliyiin ka mid ah dowladda Turkiga inaan daayar ahaa oo isla markaa jiray 26 sano, wuxuuna ku qanciyay inay ka soo qayb galaan bandhigga oo uu ku soo bandhigayo diyaarad uu isagu gacantiisa ku sameeyay oon duuliye lahayn. Gudaha Turkiga uu ku farsameeyay inankan oo lagu magacaabo Selçuk Bayraktar ayaa noqon doona sanado run kadib dadka ugu saameynta badan caalamka, doorna ka ciyaari doona in dalkiisu uu noqdo quwadaha caalamka. Sanadkii 2015 wuxuu ku guuleystay diyaaradiisii ugu horeysay aan duuliye lahayn. Diyaaraddan ayaa ku guuleystay masaafo u jirta 8 kiiloomitir in ay ka toogto cadowgeeda iyada oo adeegsanaysa gantaal, waxayna ku duuleysay joog dhan 4 kiiloomitir. Isla sanadkaa waxaa sodon ku noqday madaxweynaha Turkiga Erdogan, isagoo guursaday gabadha uu dhalay Recep Tayyip Erdogan ee Sumaya Erdogan. Diyaaradaha Bayraktar ayaa noqon doona muddo yar kadib dhabarka ciidanka Turkiga oo ku hawlgalo. Sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay diyaaradaha Turkigu in ay hawlgaleen 100 saac. Guulaha ay soo hooyeen diyaaradaha ayaa ka dhigtay dowladda Turkiga mid kordhisa ay u adeegsato xeebaha ku teedsan dalkeeda, gaar ahaan xeebaha Aegean iyo Badda Dhexe. Intaas kumay koobnaan, balse dalka Turkiga ayaa u dhoofay dalka Liibiya si ay garab u siiyaan xukuumadda dalka. Shalay waxay ahayd in dalka Mareykanka uu diido dalka Turkiga diyaaradaha inuu ka iibiyo, laakiinse maanta waqtigii wuu isbedelay oo Turkigu wuxuu ku dhaqaaqay wadada guusha, horumar iyo isku filnaansho gaadhay.